الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد walaalayal waxaan rabaa maanta halkan inaan baaq uga diro dadka walaalaha ee dhiigooda ku qubanayo soodinta ama dhulka gobolka Hiiraan dhaxdiisa beelahaas oo ka soo kala jeeda galgaduud iyo Hiiraan marka koowaad waxaan rabaa inaan si cad ula hadlo dadka qaswadayaalka oo dagaalka sii horinayo oo xumaynayo khaska inay ka joojiyaan dadka walaalaha dhiigoodana aysan ku ganacsan aysan isku dayin inay ka macaashaan dhiigga dadka ay isku dayaan sida ugu wanaagsan ee loo xallin karo xal nabadeedna looga gaari karo xalay toole waxaan maqlaayay nin sheeganaya inuu xildhibaan yahay boosashay ku xiran yihiin qoray wato dhahaya dagaalkan ku jira xildhibaan dhawaana meeshu ku dagaalamayo waa xagee waa Hiiraan isaguna wuxuu ka yimid galgaduud waxaan aad ula yaabanahay marka ninka dhahayo dhul lama kala laha waa ku dagaalamaya waa qabsanaya waa doqon caaq ah waxba kala ogeyn dhulka waa la kala leeyahay soohdin isticmaalkii dhigayaa jirtay soohdin ay dhigtay dawladdii kacaanka ahayd jirtay hadda markii la abuurayay maamul goboleedyada waa la kala xadeeyay dhulka xaduu leeyahay ha ahaato ummadda walaalaha ah daaqa oo iska wada daaqaan qolo walba intay dhaqaaqday meel kasta tagtaa ay soo daaqdaa laakiin ka soo hin ahaan waa la kala leeyahay dhulka ninka dhahaya lama kala laha waa beenaale ummadda isku diraayo oo u baahan wax gacan bira uga qabto ummadda dhulka waa la kala leeyahay ninba meeluu leeyahay reer Hirshabeelle ayaa iskale dhulkan soodimahoodana ayagaa laga rabaa inay ilaashadaan qaybta fadhiso Hirshabeelle ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa laga rabaa inay tagaan xuduudda dhabta ay ilaaliyaan ayagaa laga rabaa dadka inay kala dhaxgalaan ayagaa laga rabaa dadka inay kala celiyaan ayagaa laga rabaa waad maqlayseen in sheeganaa inuu yahay ugaaskii ceeb wuxuu ku hadlaayay waa maqlayseen wuxuu yiri waxa ku diriraayo meesha waxa ku diriraayo ceer iyo xawaadle war maxamed cali waa wax dagaalama ceer maaha xawaadle maaha xawaadle wuxuu degan yahay Itoobiya wuxuu degan yahay Kenya hawiyo dhanaa magacooda kaarka iyo dhidhin kaarka ku goosto niman halkan degan ma aha Hiiraan waxa degan waa afar samatalis afarta samatalisna ma wada degana meesha hadda ka dagaalamayaan waxa degan maxamed cali oo qura waxa dagaalamayaan waa maxamed cali oo qura wanaaga haddaan laga abaarin oo dadka dhammaan buraash xaar la wada bariyo oo ninka ugaaska sheeganayo iyo kan xildhibaanka ka sheeganayo iyo kan nabadoonka sheeganayo ee buraash xaar la wada bariyaan dadka wax hagaagaya ma jirto wayna sii xumaanaysaa meesha maanta ay joogto meel ku xunna way tagaysaa waxay ila tahay aniga marka in runta loo soo noqdo qolo walba dhulkay ka soo duushay inay ku noqoto dhulkay deegaanka u lahayd inay ku noqoto dhulka waa la kala leeyahay waxa lagu daaqi karaa oo kaliya heshiis wax heshiis aan ahayn lagu ma daaqi karo qolo walba dhulkeeda ha ku noqoto fadhigeeda ha ku noqoto si xal waaro looga gaaro oo loo dhaxdhaxaadiyo oo wixii dhintay loo arko oo wixii dhaawacmay loo arko waxa leeyahay qolo walba fariisimaheedii ha ku noqoto xaqiiqda dhabta ah marka idin sheego dhulka waa la kala leeyahay soohdima yaallo haddii ay u arkaan ayagu inaan la kala lahayn waa la kala leeyahay haddaan la kala lahayn kuwanima intay socdaan ilaahay gaalka ay qabsan lahayn ilaahay dhuu sabareeb qabsan lahayn waa la kala leeyahay dhulka geed guda meeshu ku yaal geed jicibo guda meeshu ku yaal waa dhul xawaadle waa maxamed cali gaana lagu ogyahay ayagaana degan oo soo hinahan iyo dhul ahaan u degan xawaadluhu ninba dhinacuu joog ka degan yahay wadanka waxaan rabaa marka inaan u hadlo xaqiiqda dhabta ah nimanka odayaasha sheeganayo oo xildhibaanada sheeganayo yaani calweyn bahasha ha toosiyaano anu horta ma uu arka xildhibaan sax ah inuu ka jiro galmudug iyo Hirshabeelle midna waayo nimanka warajaada laga keenay ahaayeen oo meesha orod ku tagay ee niman qabiil geeysta ma ahayn niman wanaag lagu geeyna ma ahayn niman xataa la qaybsaday oo 4.5 lagu geeyay ma ahayn niman iska yaaco iska tagay ahayn saas inay u dhaqmaayaan way u muuqatay inuu yiraahdo anigu xildhibaan ahay booshii qoraya wata dagaalkan galaya oo ku faano waa ceeb dhiigii walaalka lagama ganacsado dhiigga dadka sukeeyaha lagama ganacsado dhiigga dadka dariska lagama ganacsado lagu mana faano waa dadnimo xumo waa aqoon la'aan waa jaahilnimo waxa rabaa marka inaa u digo nimanka mujrimiinta
ee doonaya ummadda inay isku sii holciyaan oo dabka ay sii shidaan waxaa leeyahay ka jooga oo ka jooga oo ka jooga haddaa ka joogi weysaan waxaa leedinku qabanayaa gacan biraha leedinku qabanayaa waxaan rabaa marka nimanka colaadda hurinayaan rabaa inaan si dhaba ula hadlo dhulkan ma aha maxaas dhul la wada leeyahay ma aha shirka ma aha maxaas iska daayay libi hiiraanaan la wada lahayn in laga soo gudbanayaan ahayn nimanka colaadda hurinaya oo ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya oo ka mid yahay mahad salaad ay ka mid yihiin xildhibaanada hirshabeelle ugu jiro waxaan u sheegayaa haddaa xoog iyo xalaal ku qabsan kartaan maxaase waa taasi qabsada waxaa jooga rag xiniye leh oo 9 bilood ku dhashay oo idila mide oo diyaar u ah dalkooda inay difaacdaan haddii aad isku dayi kartaan inaad xoog ku qabsataan isku dayaan leh runtaan idiin sheegayaa annaga hadday xaajadu samaato samatalisaan nahay hadday xumaatana xawaadlaan nahay waxay ku wanaagsan tahay in wanaag looga wada hadlo waxay ku wanaagsan tahay in wadajir iyo walaaltinimo looga wada hadlo meesha ugaaskeedii maryaha tuurtay oo karbaha tuurtay oo leh cayr iyo waxa diraya xawaad leh ma nabadaa laga sugayaa halkaas meesha xildhibaanadooda ay dagaalamayaan ma nabadaa laga sugayaa meesha wasiiradoodii dawladda ku jira ay hadlayaan ma nabadaa laga sugayaa laga sugi maayo adee runtaa idiin sheegaya maxaas waa taas ninkii tegi karaa ha tago xaqiiqda dhabtaa weli layskuma sheegin saakay laga bilaabo dhabtaa laysku sheegayaa wabilaahi tawfiiq